السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ميل ولي وجوجتان نبض إن حديث دشينها آتي كسر دوادا مقال عصب معلمه دم ببرها برشة وحسوا بدني قبل صدوبي مقال دوده أيكو ميوسيكو جاسية قبلها أنا ما أهين كوا أستورن أم حجابا حجابك وحاسة كاجس يدرم محام مقضي قيمة بدن أوجش كودا كميدا هذا وحرم مقال كان إن نقول حلو مهمة ده إلى هاي حرشة درك وناكسن أي قبلها ما حي تصالكتها أم حيث كترجميسا waxa ay tusaale ka tahay ama ay muujinaysaa gabadha asturnaanteeda ama dharka ay xiran tahay tarbiyada aabaheeda masayrka walaalkeeda raganimada ninkeeda iyo koriimada hooyadeeda maxaa yeelay markii arkeen qoomkii Maryama bintu Imraan oo wadata nabi Ciise oo yar waxay ku yiraahdeen ya ukhta Haarun walaashiisii ما كان أبوك امرأ سوء أبها ما أوصن إهين مدحن وما كان أمك بغيا هو يدانا ما أيسن إهين مجر كده إيبسا waxay sheegeen walaalkeed waxay sheegeen aabaheed waxayna sheegeen hooyadii taas macnaheedu waxa ay tahay wanaaga gabadha waxay u laabanaysaa qoyskeeda haddii tahay qof wanaagsan qoyskeeda ayaa noqonaya qof wanaagsan haddii ay tahay qof xunna qoyskeeda ayaa noqonaya qof xun sidaas daraadeed haddii gabadhu ay tahay mid asturata oo wanaagsan waxay ilaalinaysaa sharafteeda iyo sharafta qoyskeeda intaas ka sokow gabadha asturata waa mid og إن الله سبحانه وتعالى أولابن دونته لا نحسب تبدون هذا ولا شيء يوسف كل تيجي أدون كان أو هالمامن وحمانته إيمانته دنبه وقروح دقواه هدي الدستورة مانتي وحيكاد دفاع إساء حمانته مانتي شرط إنسي يجني كإيجيا ما أنت قيامنا وحنا نقول إساء مدفول إساء أواميرتي الله سبحانه وتعالى أنت أين ولد وحال كل مدونته أجركي درجاتك أتكوش قيسة الدنيا هذا فرينتان waxay ku socotaa gabdhaha Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan waad ku mahadsantahay daawashadaada gaarsii kuwa kale oo uusan gaarin muuqaalkan